بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعنا وناكسن أصحابتنا جعلنا هيو كسر دوادا برامج كلا يابكا دنيدا oo isbuucii laba jeer aad ka daawataan channelka Barka 252 maanta waxaan ku soo qaadan doonaa gabar yar oo dabaq 12 biyaanaha ka soo dhacday oo wali nool balse inta barnaamijka ugu dagelin waxaan ku daafuro doonaa mid kamid ah kaalmaha suugaanta oo ay si wada jir ah ugu luqeeyaan fanaanada weyn ee Sahra Ama Jaamac iyo Xasan Diri بحلوه وطونه كهوكتي وبري افتيمه وبحتيرتي بحلوه وطونه كهوكتي وبري افتيمه موتا ينو إلى بيالجوغا موتا يترتا إنا نو منهي موتا ينو إلى بيالجوغا موتا يترتا إنا نو منهي كأبدانا ياي كان عوضي بالبراي مدور دمتان كأبدانا ياي كان عوضي بالبراي مكتايران كو أمضي أدقاي مكتاي درتا إنا نوغالي مكتايران كو أمضي أدقاي مكتاي درتا إنا نوغالي قلبك كما بريد روحان أركب أدم مودين أهسو قلبك كما بريد روحان أركب أدم مودين إلينا في أبايو أدوينونو إلينا في أبايو أدوينونو وهجاج سكسونا قد وناكسن صاحب بيال أن هالكا كاكا تلابنو هستي دافور كويت برامجكا وآي سي وذي جرا ولقينيين فنانا دوين سهرة أحمد جامع iyo waliba Xasan Diri barnaamijkeena ayaan gudagaleynaa jariirada Daily Mail ee ka soo baxda dalka Ingiriiska ayaa qortay dhacdo gabar 13 jir ah oo ka soo dhacday dabaq 12 biyaana ah kana badbaaday oo isbitaalka hadda lagu dabiibayo jariiradu waxay sheegtay in Hetel Soroli oo 13 jir ah ay ka soo dhacday dabaq 12 biyaana ah waxayna ku kor dhacday saqaf macdan ka samaysan goob gawaadhida la dhigto kadibna dhanka hoose ayay u sii hoowatay dadkii wadada marayay ayaa dhinaceeda u cararay si ay u hubiyaan in ay nooshahay iyo in kale jariirada waxay faafisay muuqaal sida uu u burburay saqafkii ay ku soo dul dhacday gabadhaani yar ayaa darishada gurigooda joogtay si ay ula sheekaysato qaar ka mid ah saaxiibada iskuulka inta aanay soo dhicin ka hor hadda dhaqaatiirtu waxay sheegayaan in xaaladeeda caafimaad ay xasiloon tahay gabadhan yar oo u dhalatay dalka India ayaa daawo joogto ah lagu wadaa halka la doonayo in qaliino kala duwan lagu fuliyo maalmo gudahood iyagoo carabka ku adkeeyay in gabadhan xaalkeeda uu yahay mid mucjiso ah waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan
gacmaha oo dhowr meel ka jabay, dhaawacyo dhanka caloosha iyo madaxa ah, halka aan wax dhibaato ah soo gaarin xubnaha muhiimka ah ee jirkeeda sida maskaxda, wadnaha, kaliyaha iyo waliba baarka oo dhammaan si dabiici ah u shaqeynayaan. guud ahaan barnaamijka layaabka dunida oo aan maanta ku soo qaadanay gabar yar oo ka soo dhacday dabaq 12 biyaana ah oo wali nool. waa naga intaa, dib inta u kulmi doono waa saaxiibkii Ismaaciil Saxafi oo idin leh mana Allah. adoo janay haade haween ku agjoojin maayado jawi caashaq doonay marnaba ku jikaari maayo. adoo janay haade haween ku agjoojin maayado jawi caashaq doonay marnaba ku jikaari maayo. هذه جيرين دونك قعلوي جيرada ka dawoobi may farxiyoy tartaajalka quudan may qaariyay jidinkan raadsan may maqanay hadaadila jiirina dunka gacaloy jirada ka dawoobi may farxiyoy tartaajalka quudan may qaariyay jidinkan raadsan may maqanay. هذه جيرين دونك قعلوي جيرada ka dawoobi may farxiyoy tartaajalka quudan may qaariyay jidinkan raadsan may maqanay hadaadila jiirina dunka gacaloy jirada ka dawoobi may farxiyoy tartaajalka quudan may qaariyay jidinkan raadsan may maqanay. dareenku jiliinka weyne وفانا بيحين فرحيا وقيقا وجيحي مايو معانو جنجيري مايو جعيل جعيل وذاقي مايو. داريهنكو جليين كويني وفانا بيحين فرحيا وقيقا وجيحي مايو معانو جنجيري مايو جعيل جعيل وذاقي